bilowno midkan baalkan sida in muuqato wuxuu ogyahay waranka oo ah hubkii markii hore Soomaaliya asalkeedii ay ku dirri jirtay baalkan wuxuu ka samaysan yahay sida in muuqata hadda waxa moodaa inay kula muuqato inuu yahay waran rasmi ah laakiin wuxuu ka samaysan yahay alwaax maamada ayaan rabaa inaan weydiino qaabkii loo naqshadeeyay ee lagu ekeysiyay alwaaxan waranka waa mahadsanta alcadaala waxaan u gartay waran weeye alwaaxa laga sameeyay waa la qoray rinjiya la geliyay warankii birta ayaa loo ekeysiyay waxa loogu talagalay hidaha iyo dhaqankii hore inuu qayb ka noqdo hadii waran bir aan sameynana waxaan ka yaabno odayaashuna isla dhacaan waxyaabo la yaab kale kan oo kala kamid ah waxa laga yaabaa inaan aqoonin laakiin laba dabool oo isku daboolan oo kala furmaasay inuu muuqato oo wakaasa maamada rabaa in magac loo yaqaan weydiyo ما محاوى كم جيس ومهتم تعدى العدالة وحواي وعو أيا لقى طلي أنسق أيا لقى شبطة مجلس وحلي رقفت ويا كانوا حلويا كنا قفت سينما محاوى نشكتي بعشان أنت بدنا ولا وذا يقنا وديل ليه دم أنا وحلوش شبطة جرافي أم جاك لكن أصل أهم وحلوش شو بدري أنا ديشان ديشان ويفرنتا قاب كان أيا فرما كده دوال كان أساسا الله ربنا يدري وهذا واحد كجرا أنا سيدي مقطع ومعمدو أي أدي عرسي تذكر مرتدى قلبت حفظة كسر غيب قلي إن استعمالان ما محاول ديشان ما سيدا أصلا قدام مسيرين كاسمية أنا ما هتصنتها العدالة واحد درين سنتها وادير مركه هراء marka labaad geed la raqabo ayaa laga tolaa lama sameeyo iyada waa la tolaa ma taqaana aglool wax la yiraahdo jira waa la agloola carar baa lagu rogaa waa la agloola aglool waxa weeye carar baa lagu shubaya cararkaas marka lagu shubana waxa lagu sameeynaya waa la shiilaynaya shiishu maxay tahay dhagaxa dabka lagu ridayaa waa lagu rogrogayaa markaas kadib baa la culaya waa culista aglool baa ka horeeya waa mahadsan tahay waana dhiishayadii hore oo hidee dhaqankii Soomaaliyeed waa si maamul ee noo sharaxay kan ayaan rabaa inaan soo qabto kan qaadiis isku jiraan wuxuu hadda ka dhigan tahay in kitaab badar lagu shuban karo baalkan ani xitaa magaciisa ma aqaan maamada rabaa inaan weydiiyo ma maxaa kan waa mahadsan tahay magaciisa waxa la yiraahdaa xeerasaley soorta ayadu macdanaha jirta ayadu waa geed laga qoraa xeerasaley magaciisa geeda fara badan weeye waa dhirta anaga noo baxdo ilaahayna siiyo geed kamid ah hadda garasay ka samaysan tahay aad garasay ka samaysan tahay geed kale oo muxuu ahaay asagana magacluna waa jira waa mahadsan tahay waxa lagu cunaa soorta falfaliirka iyo wixii lamida kan waa qaado sida idin muuqata waliba waa mid lagu kariyo sabta qaadooyinka weynka san dareemayo maama qaado magac ahayn ma leedahay tan waa mahadsantahay hooyo waxa la yiraahdaa qarsin ama waxa la dhaqudo inta soorta saa lagu qasaa intana waa lagu guraa afkan hore waa lagu guraa inta aad mahadsantahay waxaan u fahmay intana qaybtana loo isticmaalay in badan lagu walaaqa qaybtana lagu gurto laakiin qaybtan way kula doontaa lagu ma degdegi doono wax kulayla ma leh kan waa bahal yar dhiil camal samaysan dabcan gudihiisa aad u dheer yahay wuxuu ka samaysan yahay geed la qoray magaciisa ayaan rabaa inaan maamada su'aalo maama waa geed biyaha lagu shuban jiray waqtigii hore oo aniga xataa aanan dhalan adiga caruur baa tahay laakiin anigu aanan dhalan ayaa lagu shuban jiray biyaha geed la yiraahdo bocor ayaa laga sameeyaa magaciisana wax la yiraahdo quluc bocorkana hadda waxa caadi loo isticmaalaa in suugada lagu darsado waayahay kan waa bahal qurux si qaab qurux badan u samaysan calanka Soomaaliya ayaa ku yaala magac ma leedahay calankii Soomaalida ayaan waxaanu sameynaa kartoon caadi ah caw iyo kartoon isku tolnay calankii Soomaalida ayaan ku qurxinay mahadsantahay bahalkan waa xariin inta badan dadku way yaqaanaan xilliyadii hore bahal loo yaqaan go'sada
waa lagu boobin jiray inta aan xasuusto laakiin hadda lama isticmaalo maamadu waxyaabaha looga faa'iideysta marka joogto dawlad goboleedka galmudug gaar ahaan madaxtooyada xilliyada martidu joogan ama madaxda dawlad goboleedka iyo madaxda kale ee dawladda federaalka nooga yimaada waxa lagu shubaa saloolka ama dhaanga waxa ay reer magaalku ama dadka magaalada jooga u yaqaanaan laakiin asal ahaan magaceedu ahaa salool si idin muuqata ilaa ay galabta dhan wala wada isticmaalay maamada ayaan rabaa inaan weydiiyo dabcan waa xariin wuxuu ka samaysan yahay geel loo yaqaan qabo laakiin hadda wuu guduudan yahay waxa lagu guduudiyay waa mahadsan tahay asalkiisu waa qabo waa dareensan tahay waa la tolay carar ayaa la yiraahdaa dhirta laga keenaa geed la weey waa la tumay waa la qooyay carar ayaa la yiraahdaa magaciisa waa mahadsan tahay Cabdirasaaq Al Cadaala Goobjoog TV Hadaado